جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا اللون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء ليبقى السلام في دنيا الله الظلام تبارك وتعالى wax walba ayuu qoray wax kastana horuu u qaybiyey wixii ajal ana waa qoranta wixii risiq ana waa qaybsan yahay wuxuu alla qaybiyeyna tabaaraka wa tacaala isagaa khaas la ah cidna muusan daalacsiinin mana uusan tusina isagaa la gooni ah rabbi tabaaraka wa tacaala xikmadiisa darteed ayuu addoommada rabbi tabaaraka wa tacaala qaarba si ka dhigay oo qaarba si wax u siiyey ruuxa muslimka ah ee allah iyo daarta aakhira rumaysan waxaa laga doonayaa wixii rabbigii siiyey tabaaraka wa tacaala ha u yaraado ha u badnaado inuu raalli ku noqdo oo ku qanco oo qalbigiisu ku dego oo uu ku xasilo waxa rabbigaa ku siiyey tabaaraka wa tacaala ee uu kuu qoray maslaxadaada iyo dantaada ku jirta addoommada rabbi waxaa ka mid a qaar uu waxba siinin ama uu ku yareeyey oo hadduu ku badin lahaa adduunkoodi iyo aakhiradooduba fasaadi lahayd qaar waxaa ka mida uu ku badiyey hadduu ku yarayn lahaana adduunkoodi iyo aakhiradooduba fasaadi lahayd allah baa garanaya tabaaraka wa tacaala mawaatina alxikma xikmaddu meesha ay taallo iyo maslaxada addoommada isagaa yaqaana rabbigaa qaybtiisa iyo qorshihiisa iyo wuxuu kuugu talagalay raalli ku noogu qanac qanaacadaasi waa khuluq akhlaaq aada u qiimo badan ruuxana waxay siinaysaa inuu ka nasto dhibaatooyin fara badan oo maanta dadka haysta dad fara badan isla hadal iyo murug iyo strays iyo cudurro ayaa dilaya sababta wax weeyaan waxuu qaadan la'yahay ruuxani ilaahay tabaaraka wa tacaala qaybtiisuu qaadan la'yahay wuxuu u hanqaltaagayaa oo ka fikirayaa oo habeen iyo maalinba ku soo jeedaa wixii rabbi u qaybiyey waxaan ahayn waxbase kama bedeli kartid adiga unbaa isdhibi oo cudur isku ridi oo waalan oo iswareerin mooye rabbi qaybtiisa waxba kama bedeli kartid soo kuma fiicno marka intaad qalbigaaga dejiso wixii rabbigaa ku siiyey tabaaraka wa tacaala inaad raalli ku noqoto waxaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ka sugan inuu yidhi waxaa janno iska leh oo liibaan iska leh ruuxa lagu hanuuniyey islaamnimada iimaan iyo islaamnimo iyo mabda' sax ah diin saxuu haystaa waa ruux toos noloshiisuna ay tahay wax ku filan baahidiisa asaasiga abay ku filan tahay kama siyaadsanaa haddana waa ku qanacsan yahay saddexdaa ruuxii laga helo nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay tuuba waa geed jannada ku taala liibaanna waa laga cabiraa waxaa fasiraya xadiidka cabdillaahi bni camr bni caas fii saxiixi muslim oo nebigu yihi sal alla alay wasalam waxaa liibaanay ruuxii islaamay oo diinta si dhaba u qabsaday allana uu ku irsaaqay wax ku filan oo nolosha asaasiyaadkeeda baahida asaasiga aan kana yarayn kana siyaadsanayn allana tabaaraka wa tacaala marka saddexaad uu ku qanciyey oo qalbigiisa ku dejiyey oo raalli ku ah intaa ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala waa liibaanay buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sababtu waxa weeye
dadaalka iyo xirsiga faraha badan iyo daba orodka iyo soo qabo adduunyada soo qabo ruuxa adduun diintiisa iyo sharafkiisa labadiisaba waa u dhamaysaa waa baabi'isaa nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu miaal uga dhigoo tusaale kaga bixiyey sida xirsiga iyo dadaalka faraha badan uu ruuxa diintiisa iyo sharafkiisa u baabi'inayo wuxuu kala mid dhigay nabigu sallallahu alayhi wasallam sidii ari yey lagu sii daayay oo kale yeyda ariga markii lagu sii daayo waxba kama reebto hal neef intay qabsatana kuma kaaftoonto ma cunto laakiin mid bay dishaa kii kale ka daba tagtaa ilaa ay kulli wada dhammayso kama hadho yey ari lagu sii daayay say u fasaadiso sidaasoo kaleeta waxaa ruuxa diintiisa iyo sharafkiisa u fasaadiya xirsiga iyo dadaalka faraha badan ee adduunyada waxaa kaaga filan marka oo adduunkaaga iyo aakhiradaadaba hagaajinaya bedelkeeda inaad gashato qanaacada wixii ilaahay kuu qoray tabaaraka wa tacaala isagaaba imaan oo laba gooraba waad helaysaa laakiin qalbigaaga ha wareerinin noloshaadana ha fasaadinin dhibna ha isu geysanin wixii rabbigaa ku siiyeyna alxamdulillah dhahoo ku qanac ku sabir ku qanac oo raalli ku noqo sidaa markay noqoto waxaad noqonaysaa addoommada ilaahay midka ugu shukri badan oo nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid abi hurayra nabigu sal alay waslam abu hurayrow waxaad noqotaa mid xalaasha miirta oo xaaraanta ka carara xalaasha ku dadaal waxaad noqonaysaa addoommada midka ugu cibaado badan ugu cibaado fiican waxaad noqotaa mid qanacsan oo raalli ku ah wixii rabbi siiyey waxaad noqonaysaa midka addoommada ugu shukri badan la jeclow dadka waxaad naftaada la jeceshahay mu'min baad noqon cidda kula darista ee kula nool la darsidiisa wanaaji muslim baad noqon qosolka yaree waxaa yeelay qosolka faraha badan qalbiga ayuu dilaayay sidaas daraaddeed waxaad noqotaa mid qanacsan waxaad noqonaysaa addoommada midka ugu shukri badan wixii yara ilaahay ku siiya haddaad ku qanacsan tahay waxaa badanaya shukrigaaga ilaahay tabaaraka wa tacaala ammaantiisaad badin waxaa kula weynaanaya nicmada rabbi ku siiyey tabaaraka wa tacaala haddiise qanaacada lagaa qaado wax ku deeqaya ma jiro adduunkao dhan haddii laguu dhiibo laakiin rabbi uusan qanaaco ku siinin kuma deeqayo nabigeenna wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh haninimada iyo hodannimada ma aha xoolo badan ma aha xoolo badan ma aha kursi aad fuusha ma aha jago aad hesha ma aha xoolo badan oo lagugu farraqo ma aha laakiin waxa weeyaan waa naftaada oo qanacsan wey inama alghinaa hina annafs naftaada hadday qanacdo oo qalbigaaga alla dejiyo oo qanaaco ku siiyo taasaa waxay tahay haninimada iyo hodannimada aan meelle laga helin ha kaa maqnaato adduunya waxay kaala maqnaanayso laakiin rabbigaa tabaaraka wa tacaala qalbiga ha kuu dejiyo wuxuu ku siiyeyna iimaankiisa iyo qanacsanaantiisa ha ku siiyo waxba kaama maqna markaa waxba kaama maqna maxaa yeelay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ducadiisii waxaa ka mid ahayd ilaahow reer maxamed waa reerihiis reer maxamed risiqooda wax ku filan ka dhig wuxuu mar hadduu siyaado oo ay kula durugto oo aad soo qaba tidhaahdo oo aad kulmiyo uruuri tidhaahdo oo tartankeeda aad gasho oo yaan lagaa badsanin ay timaado khatar baad ku jirtaa markaa khatar baad ku jirtaa lianno badsigaa faraha badan iyo tartankaasi wuxuu ku dhaafinayaa xataa hadduu fayow yahay wuxuu ku dhaafinayaa wax isaga ka fiican wuxuu ku dhaafinayaa tartankii aakharo waa midda labaadee tartanka adduunyada aada ugu jirtaay mid soo afjarmaya ma aha adoo tartamaya oo ordaya oo soo qaba leh baa adiga lagu qaban doonaa saa ku talagal sida rabbigeen yidhi tabaaraka wa tacaala alhaakum takaathur waxaa idin mashquuliyey kala badsiga iyo tartanka adduunyada xataa zurtum lmaqaabira ilaa qubuurta aada siyaarateen raadinta iyo tartanka dayn maysaan ilaa qubuurta aada gashaan markaasaa rabbigeen wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala kalaa sawfa taclamuuna waad se ogaan doontaan uma kalaa sawfa taclamuuna waad ogaan doontaan waa hanjabaad hadalku tartankaa aad ku jirtaan waad ogaan doontaan
haddaad se ogaan lahaydeen cilmiga yaqiinta ah cilmiga dhabta ah xaqiiqada waxa jira haddaad ogaan lahaydeen qadarka iyo qiimaha tartanku leeyahay adduunya waxay tahay xaqiiqada haddaad ogaan lahaydeen tartanka maydaan gasheen dhinac kale aad u tartami lahayd sidaas daraaddeed ibni aadamku xataa hadduu duqoobo xataa hadduu da-oobo sariirta ku urursado laa yazaalu qalbu lmar'i shaaban fi ithnatayn fii xubi addunya wa tuuli alamal laba shay kama duqoobo adduunye jacayl kama duqoobo yididiilo dheerna kama duqoobo waad sii noolaanaysaa wakhti baa kuu laaban kama duqoobo raadinta adduunyada kama duqoobo xataa hadduu sariirta ku urursado adoo raadinayaa lagu qaban marka mana ka dhargaysidoo soo afjari maysid oo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ibni aadamku haddii laba tog oo dahaba la siiyo mid saddexaad buu raadin ka saddexaad haddii loogu darana ku afraad buu raadin ku afraad haddii loogu darana dabcan kuwo kaluu sii raadin afkiisa iyo calooshiisa waxaa buuxiya uun carrada qabri inuu gala mooyaane si kale kuma dhargo sidaas daraaddeed allah wuxuu ka toobad aqbalaa ciddii usoo noqota buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh qanaacada iyo wixii ilaahay ku siiyey ee yar intaad ku qanacdo kadibna ilaahay xaggiisa u jeesoo badso wixii daarta aakharo aad ilaahay agtiisa u baxsan lahay